السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa murti iyo xikmado xeel dheer. Kuwani oo orahayo huwan ujeedooyin durugsan waxayna idan u noqon karaan kashi iyo kasmada qofka. Waa erayo ka mid ah hadalladii dadkii soo banaa ay soo maray ummadda Islaamka. Runtii kolkaad lafta jabsatid waxaad ka dhuuxaysaa waana iyo hogaatus xeel dheer sidoo kale waxaa ku duugan dhiirigelin aad ku jibaaxi karto caqabado kala duwan. Number 1 way adag tahay in la samraa waxaase ka sii xun in la lumiyo abaalmarinadu uu lahaa samir Abu Bakr as-Siddiq. Number 2 si aad u hesho waxaad jeceshahay waa inaad u dul qaadataa waxaad neceb tahay Abu Hamid al-Ghazali. Number 3 waqti lumintu waxay ka daran tahay geerida waayo geeridu waxay ka xareysiisaa dunida waqti lumintuna waxay ka fogeysaa cabsida Ilaahay. Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Number 4 cudurka asiiba qalbiga waa isla weynida cudurka ku dhaca cibaadaduna waa istuska Ibn al-Tayyib. Number 5 iloobi naftaada markaad wacdinayso dadka kale Umar bin Khattab. Number 6 munaafiqu wuxuu fiiriyaa gafafka muuminkana raalin gelinta Imam Ghazali. Number 7 qofka ay badato sheegashadiisu waxa yaraada saaxiibadiisa Fudayl ibn Iyad. Number 8 ku kalsoonaan anshiga iyo anshaxa qofka laayood aragto sida uu dhaqmo marka uu caroodo Umar bin Khattab. Number 9 ku qalafsano ku dhaada ta kalena u dabacsano Imam Shafi'i. Number 10 saaxiibka rumaad waa kan markaad ku tiraahdo isoo raac aan ku su'aalin halkee si intuu kaco una raaca Imam Ghazali. Number 11 haddii aad rabto inaad xakamayso dadka kale ugu horeyn waa inaad xakamaysaa naftaada Abu Bakr as-Siddiq. Number 12 amaanta dadku ay farxad gelin qalbigaaga si ay ku murugelin liishoodo Imam Ghazali.